daaroodka hadda jooga axmed madoobe oo kolba meel ku dhacdhacayo kolna Kenya la xirmaya kolna hadii alla ku sama ogol yahay meel uu la xirmaya an hadda anaka aqoon loo wareersan nin wareeray ah daniyow dawladda ha ka reebin dadka ha ku dhimin door dawlad la'aan waa balaayo waa dhib dawlad la'aan waa balaayo waa dhibaato dadka ha ku dhumin ha dhumin dadka dhumin soo raaci dadka daniyow dawladda soo raaci hadii ma jeerteenow hadii dani idin diiday adinku mageedaad ku xirxirantiin soo ruug cadaan ma lihidin soo ugaas ma lihidin soo aqoonyahan ma lihidin soo ururo wax garta ma lihidin ha ka harina rahmaan rahiim waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin maxamed ibraahim cumar oo barnaamij kale idiin soo diyaariyey barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay ka falcelin ama ka jawaabid ninkii maxishoodaha ahaa ummadda Soomaaliyeed inuu madaxa isu geliyo go'aansaday la magac baxay difaac qaran ninkaas ayaan u jawaabeynaa maamadii hadda hadlaysay waayeelka ahayd ee uu keenay isaga wad maqlayseen waxay lahayd waan keeni doonaa marka video kale oo xogaa yar oo kale aan keeni doonaa ay leedahay Kismaayana annaga iskale Axmed Madoobe wuxuu leeyahay kaliya af madow marka waxaan rabaa siyaasadii Jubbaland ee hadda ugu dambeysay inaan yara taabto si loo fahmo scope-ka meesha ka jira ama the background information ka jira si loo fahmo first of all marka ugu horeysa doorasho aanan raali laga ahayn ayuu meesha ku qabtay ninkii ahaa madaxweynihii Axmed Madoobe anigu waxaan la jiray raggii asaga la tartamayay ka soo horjeeday uu ka mid ahaa Dr. Maxamed Yuusuf Awdaahir oo nin aqoon-yahan oo la yaqaan ah waxaa kaloo ka mid ahaa xildhibaan xidig waxaa kaloo ka mid ahaa raggii la tartamay Axmed ninkii ahaa Ugaaseraar iyo rag far badan oo kale oo xilka rabay inay qabtaan Jubbaland ay madaxweyne ka noqdaan marka at that time anagu waxaan taageero u ahayn Axmed in la bedelo oo dad kale ay meeshii ay qabtaan xilka dawladda Soomaaliyana farmaajo madaxda ka yahayna xilligaas anagu aad baan ula soconaa wixii ay sameynaysay ama meesha ka socday the reality waxa weeye in farmaajo uu go'aansaday in Axmed Madoobe meesha uu ka tago Axmed Madoobena uu ka diiday inuu meesha ka tago oo uu cidyaha ku dagaalamay oo wuxuu sameyn karo uu sameeyay marka wixii dhici lahaa way dhaceen time is up raggii markaas sheegtay inay madaxweynayaal ayaguna ka yihiin Jubbaland oo uu ka mid yahay xildhibaan xidig iyo Ugaaseraar labaduba way la heshiiyeen madaxweyne Axmed Madoobe innaguna marka kaalinkeennii iyo dagaalkeennii sidaas uu kusoo gabagaboobay ama kusoo koobmay walow aan ka rabnay dowladda federaalka Soomaaliyeed in ay qabato ama ay ka saarto nimanka nabadiidka ah gobollada hadda ay haystaan ay ka mid tahay Jubbada Dhexe in laga saaro ciidamadina muxuu ahaa nimankii nabadiidka ahaana dawladdii way ku guuleysan weyday way ka shaqeyn weyday barnaamijkaas ilaa iyo maantana Jubbada Dhexe ama gobolkaas Jubbada Dhexe Bu'aale magaalo madaxda u tahay Jubbaland weli wuxuu ku jiraa gacanta nimankan nabadiidka ee Al-Shabaab marka horta problemka ka jira Jubbaland saas uu u ballaaran yahay waana noocyo badan yahay cid walbana excusekeeda wixii looga saari waayay shabaab meesha iyo wixii ay ugu jiraan iyo so many other issues oo isku dhex falgan baa jira laakiin waxaan rabaa kaliya inaan taabto hal qodob oo ah ninkan hadlaya maxaa la dhihi jiray sheegtay inuu difaacayo dowladda farmaajo at the end of the day wuxuu mar walba ka shaqeynayaa sidii farmaajo loo nici lahaa ama ummadda Soomaaliyeed uu farmaajo uga horkeeni lahaa sida uu hadlayo iyo dadka uu keenayo sababtoo ay tahay barnaamij horaan keenay oo uu ku dhaliilayay ama uu ku haystay oo ku caayay beesha kuumada ee degan Kenya haddana waxa ma dhaanto waxa uu ka hadlayo Axmed Madoobe uu haystaa wuxuu leeyahay Axmed Madoobe wuxuu ka imaaday Qabri Dahare
maamada uu keenayo waxay leedahay axmed madoobe afmadow keli buu ka imaaday gobollada kale macal kismaayo annagaa iskale haddaan nahay beesha mareexan marka ninkan wuxuu sameynayaa in labadii beelood ee wada dhashay ee walaalaha ahaa jubbaland samaystay ha isku hayaan bini aadanka wax walba isku qaban karaan isku hayn iyo isqabad wuu jiri karaa laakiin maamulka ka jira jubbaland waa maamul loo dhan yahay oo cid walba oo gado degan ama jubbaland degan ay ku wada jiraan marka gadana kuumada iyo ogaadeenba waa degan yihiin muxuu ahaa jubbada dhexe iyo jubbada hoosena waa dhul soomaaliyeed dadka dhan waa wada degan yihiin at the end of the dayna dhulkan waa dhul soomaaliyeed waa dhul ilaahay leeyahay nin walba oo muslimna la rabo inuu si fiican ugu noolaado marka akhliyaddan annagaa meeshan iska leh ama ree hebel ma laha waa akhliyad aada u xun wax qarannimo lagu gaarayana ma aha marka waxaan rabay keliya inaan dhaho pointigaygu ah qarannimo haddaad rabtaan saad sheeganaysaan ama aad ku keenaysaan difaac qaran qarannimadu laguma helo inaad qabiil gooni ah daba dhigato ama aad wax ka sheegto ama majarteen ha ahaado ama ogaadeen ha ahaado qarannimada waxaa lagu helaa inaad dadka tusto wax fiican oo la wada jeclaan karo oysan ahayn bini aadanka wuxuu ka shakinayaa exactly wax aad sheegayso dad badan baa ka shakinaya waana laga shakiyey infact waxaad sheegaysaan marka si aan u helno qarannimo soomaaliyeed ama waddan soomaaliyeed oo fiican waa inaan helnaa dad fiican oo ka shaqeeya midnimada ummadda soomaaliyeed marka clipkan kalena ila dhegeysta maamadu waxay leedahay kismaayana annagaa iska leh axmed madoobe iyo reerkoodana waxba ma ku laha nooc min hanjawaadna way gelinaysaa waxay leedahay maah ay leedahay qaan mareexan waa qaaxa kugu maqan oo ay leedahay annagaa meesha madaxweyne ka ahayn iyo wasiiro haddana axmed madoobe meesha naga qabsaday marka all of this waxay dhaawacaysaa qalbiyada ama quluubta ummadda soomaaliyeed oo nadiif u noqonaysa hadda in la helo dowlad soomaaliyeed oo daacada oo nadiif ah farmaajo waa nin fiican oo wax soo qabtay wax badan u dhiman yihiin laakiin sida aan ka maqlayno dadka hadda oo u doodaya farmaajo ma aha dad ku habboonaan lahaa inay u doodaan at the same time madaxweynaha laftirkiisa waxaa laga yaabaa in uu talooyinka ka qaadanayo dad aan ku habboonayn ama aan ka shaqaynaynin wadajirka ummadda soomaaliyeed waa idin salaamaya clipkan ila fiirsada 1 second marka gado garbaharey baan ka hadlahayaa garbaharey hawlaha naga hadlahayana waa hawlo badan hawlahaas waxay yihiin horta kow marka hore axmed baan ka hadlahayaa axmed nin daarood ismaaciil weeye annaku waa dhaqaalayna waana dhowrna waana ka xishoonna intuu maray oo nala marayna ma annaan marin markii dowladdii soo jabtay oo la isugu yimid kismaayo oo annaku aan degmo ahaan u leenahay wuxuu qabaa 150 qof buu qabaa qof weli u sheegtayna lama arko hase ahaatee maamaa waxaa jirta waa qaan mareexano waa qaaxa kugu maqan adiga qabiilkaaba u qoolmi doono marka waad maqasheen maamada waxa ay sheegayso qof waa yeela weeye laakiin fikirka wuxuu u yahay fikir la wada qabo oo caam ka ah dadka meesha degan marka waa idin salaamayaa waxaan rabnaa in aan u istaagno xal raadis macnaha in xal loo helo ciladaha jira in xal u helno waaye si aan u gaarno waddan horumarsan oo isfahamsan oo dhaqaale leh oo adduunka la tartamaya afrikaba barnaamijyo kalaan soo wadaa ka sheekeyn doona maamul goboleedyada iyo sida maamulka dhexe ay u wada shaqeyn doonaan insha allah marka waa idin salaamayaa barnaamij siyaasadeed baan galnay wax gooni oon gaaroon ka leenahayna ma jiro aan ka ahayn soomaalinimo iyo fiicni iyo wanaag in laga helo waa idin salaamayaa meel walba adduunka ka joogtaan waxaan jeclahay in aad subscribe noo saartaan haddaad weli saarin haddaad noo saartayna waad mahadsan tahay
khayr iyo baraara idin rajeynaya nala soo xiriira let me know wixii oo ku saabsan Somali politics khayr badan idin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu